kan uu soo agaasimay xisbiga amniga ee cadaaladda oo hogaamiye ka ahaa Mukhtaar Robow ayaa looga hadlay halka ay ku dambeeyaan wadahadaladii xalka loogu raadinayay sidii dib mar kale xorriyadiisa u heli lahaa Mukhtaar Robow oo xargiisa ka soo wareegtay 150 maalmood. kulanka waxaa goobjoog ahaa odayaal dhaqan, dhalinyaro haween ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee ku sugnaa kulanka ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo madaxda sare dowladda federaalka in ay iska initireen baaqyada ay jeedinayaan waxgaradka siyaasiyiinta Koonfur Galbeed kaas oo lagu dalbanayo sidii xorriyadiisa dib u heli lahaa mar kale Mukhtaar Robow. Cabdicasiis Laftagareen haddii aad baydhowr hukunka baahanta tuma ishan beri muddo ka siini haddii Mukhtaar Robow tuma ishan beri gudaasho bankaa ku bahawaay baydhowr hukun shakiin dhammaati ونمي عبشو كوانا حرق شيخ مختار روبو علي أبو منصور بلا سبب لانه بلا شرع لانه بلا حكم لانه بقولي كنتم معلومات إيو والدر ما يبغى مرنا بين حق درة عدين أو تجاوز كهيرن يأدي يدونكوهنا أم باريانا أنتان قضياله وعقرت كي كوفر قلبه علماء الدين كي ديجا كي كوفر قلبه انتاسا رنداسا قادش الدردية كودي ديا هيان ما يبغى هربان نكو هذا دوا هشيسينتي ما يدور لقوا بلعبي فاسك كواد إيو فاسك لباد إلى فاسك سيد حد سكوا قاعدين حدنا مختارنا للسود داي أرنتاسنا دوا هشيسين طبعا لقى جارو أي بلنتاهيد بلنتي آوي ما ده اللي بين مشيك تبين كمرد واقده بلنتي أن لهين آوي أنا قاعد كقرب قال لي ما أنا كدبوا هشيسين ده سأبين ودي ما حد بودي ما حد وحلوه قبل واي ما حد رومي واي هلا رومي عيال لنا هاي أرن بلنتي أتقادين رئيس الجمهورية فرماجة إيو رئيس البرلمان كي يكون كيسي عبد العزيز ومدحويني سيده قبلها كوفر قلبيدا بلنتي أتقادين فليان لنا أنا قدرنا ديجي الإمرفلا أضيعشوا إن سيدا أقول رقصيها بدن لا صد دايو وريدي سنة دب لوجسو إليو شيخ مختار روبو علي أبو منصور وذا هذا للجلو استجوا حرقة ولنا وهجامينا يو وذا هذا الذي دب هشيسين تا غير كونفور قلب الصوماليا لمبر لبو سيدا كله حسب جوه كوباقيا دولة فدرالكا إيو دولة قبلاتكا koonfur galbeed inaysan ka been abuurin xaqiiqda ka jirta kana waantoobaan burburinta dastuurka taas oo keeni karta burburinta xanaanka geedi socodka dib u heshiisiinta ummadda walaalaha ah. lambar 3 xisbiga wuxuu kala codsi u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo qarashkooda lagu dhibaateynayo dadka reer koonfur galbeed in ay soo fargeliyaan arinta koonfur galbeed Soomaaliya inta aysan farax ka sii bixin. wadayaal subscribe saar channelkan haddii aad ku cusub tahay share garay like-tan ha ka iloobin sidoo kale haddii aad aragti qabto hoos inoogu reeb oo mahadsantiin.